مرة كمان هذا أنت أنا ميل سومريني لكن مركان أركي جبلي وحي قبطي كو وحن قاص هذا هرتين أنا وهم بليايو سيدا في عاني وحقبتين يسي بريزنتيشن كو سميين يوحي على هاي النصوت السن شعير بان هوس ولا يرهد ليو مركي أنو حنانة شوغنو وحن كوري شعيرو محاو دحيا جي بيغا جنرال براكتس كماشا لو تاك حافظة كو يالا عافمادك إنجليز كو يالا يا حنارada nimka halkan laga dhisay maxaa u dhaxeeya baan ku uri waa isku midoon runtii marka aad wax arkaysaa standardka la gaari inaad meesha la dhisay naftaada ku aamini karto gabile marka qiimeeyo qaab magaaleedka oo anigu aan fiilkeyguna urban planning yahay waxaan isiri magaalo gabile dhameystiran wax yar ba uga harsan inay gaadho magaalooyinka caalamka ko mid waa wadooyinka iyadoo dhaqaale badan u baahanaysa laakiin marka waxa kale oo dhan la eego waxaan u soo jeedin lahaa gabile laba wax inay ka faa'iideysato mid waa ku badda gabile inay ka faa'iideysato oo uga faa'iideysato recreational oo meel dadku soo booqan karaan meel lagu ciyaaro laga sameeyo duuniya laga sameeyo waxa weeyaan waa arin magaalada dhaqaale soo kelin karta dad badan keeni karta wayna kari karaan arinta kale ee aan jecelahayna sameeyana in public spaceska magaaladii maadaama aad kala qaybiseen oo xaafado kala qaybiseen meelaha public spaceska ay xaafadaha ku yaal in iyadana dib loo qaabeeyo si xaafadihii maadaama dadku soo ogol yihiin xaafadii la sii dajiyay meelaha roob banaan hadda arko reshaping lagu sameeyo caruurihi dadku ka nasan karaan iyo inaad sameysaan baaga ugu weyn Somaliland oo kaliya aan isleeyahay magaalo ahaan gabile waxa ka dhiman waa intaasun aad baad u mahadsantii waana ku faraxsanahay inaan u xalaysan uu halka ka soo jeediyay sigiyo teamkiisu waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa special needs schoolka oo meerku u dhisay caruurta oo aniga gaari taabtay waxaan tala ku darayaa horta gabile in yar hadal ku darayaa raalliga haado gabile anigu waxaan hayaa dhakhtarkii ugu horeeyay ee national service-ka 2009 lagu qoray saddex qof baan ahayn isbitaalkan deemka isbitaal ma sha Allah noqday oo aan isbitaal runtii aad u yar ahaa baan anigu 2009 shaqo qaran halkaan ka bilaabay bay ahayd taariikh gaar ah bay gabile aniga iyo macna gaar ah ay sameynaysaa inan iyo laba inan baan ahayn inantiina maanta waa xaaskayga maanta inanta marka waa magaaladii jacaylka dhinaca waa lagu xataa inta hadaan ka gudbo marka gabile xidid baan dhinaca ka nahay dawladda hoose ee halkan noogu soo bandhigay maxay ahayd presentationka qiimaha badan markasta oo horta gabile soo booqano inkastoo barnaamijka in badan sidii hore aan involve ahayn haddana markastoo soo booqano wax cusub baan ku soo aragnaa oo ku soo biira marka maanta waxaan ogaadinaynaa oo aad iyo aad muhiim u ah arinta maxay ahayd caruurta baahiyaha gaar kale iyo vocational schoolkaasi traininga labadaasi waa laba yani de adeego aan inaba caadi ahayn baahidoodina ay taallay aad iyo aad baan ugu maxay ugu go'aaminayna dawladda hoose maanta waxaan ku salaansanahay islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudanayaal iyo marweyn kulli maanta waa maalin weyn Soomaali waxay tiraahdaa war indha dhaama de waa isku soo dhaweynaa inaad ku soo dhawaataan gobolka Gabiley runtii caasimadiisa idinkoo hawshaas runtii wax qabadka ah ee muhiimka ah ee maamul daadinta ee dalkeen u baahnaa muhiimad badan qaranku uu u qabay in ummaddu ay wixii xagga centralka loo doonan lahaa in degmooyinku ay fuliyaan oo waxbarashada caafimaadka baahiyaha gaarka ah oo dhan iyo waxyaabaha baahiyaha bulshada ee asalka ah in dawladaha hoose ay gacanta ku dhigaan si ay bulshada u gaadho runtii community-ga oo iyagu maadaama ay la nool yihiin oo dadkii la joogaan inaan meel kale loo doonan aad iyo aad baan runtii aan ugu faraxsanahay idinkana tiim ahaan wasiiradiina iyo runtii agaasimaha guud iyo tiiman ka socdana waxaan isku soo dhaweynaynaa gobolkan Gabiley Soomaalidu waxay tiraahdaa war dhafur buu ku yaalaayo de ishina idin macallin aan u maleynayaa markaad qiimeyseen wankaadna siin doontaan wanka inaan samarteen insha Allah mashaariicda runtii de Soomaalidu waxay tiraahdaa dabki baxaya dab lagu qabsada haday mashaariic noqoto cidii aamin wax lagu aaminaa cid wax fulin karto wax lagu fuliyaa runtii anagoo runtii qaranka dhan de xil inaga wada saaran yahay mas'uuliyaduna inaga waa saaran tahay in Gabiley runtii baahiyo badan bay qabtaa oo runtii horumarka maadaama markastoo horumar loo talaabsado baahida sii baata marka maadaama sida ay tahay
gaar ahaan wasiirada caafimaadka iyo waxbarashada waxaan ka codsanayaa shaqaalaha runtii xanaanooyinka iyo iskuullada aan lahayn gunooyinka inay gunooyinka ku daraan oo runtii si gaar ah maadaama dawladda hoose ay wax badan qabatay maayarka iyo tiimkiisa iyo golaha deegaankana uga mahad celinayaa halka in laga sii wado lagu sii ilaaliyo ma rajaynaynaa ahaan farxad weyn bay noo tahay inaanu aragno gabiiley mashaariicaha horumarineed ee quruxda badan ee runtii lagu faani karo guud ahaan qaranka Soomaaliland uu ku faani karo ee ka hirgalay ee maanta aanu lagu hayaga runtii aanu ku soo aragnay mashruucan iyo mashaariicda kala duwan iyo ujeedada safarka iyaga ee maayarka Jiciir baa ka dhawaafjiyay amaba sheegay waa adeegyada iyo horumarka gobolada iyo degmooyinka ka socda inaan u kuurgalno wax ka ogaano maadaama uu sanadkii gabagabo ama dhamaad uu ku dhow yahay wixii bulshada loo qabtay inaanu soo aragno haday maayar noqoto iyo haday gobol noqoto annagoo tiimka iyaga adeegyada kala duwan runtii ee ka mas'uulka ah dawladda dhexe marka taas maanu kormeerku daaran yahay waan hambalyeeynaya waanan bogaadinayaa maamulka degmada maxamed aamin hogaaminayo runtii waxa fiican ay ka soo qabteen haday noqoto waxbarashada haday noqoto caafimaadka iyo runtii mashaariicaha horumarka xagga infrastructure-kaba runtii gabiiley waa aad iyo aad bay runtii noo qancisay aad iyo aadna waan idinku bogaadinayaa waana intaas soo runtii looga soo dhawaado waxa kale oo iyaduna aan la hilmaami karin goob kasta oo aanu tagno dadka aanu la kulmaynay yuhuuntooda iyo qalbi samaantooda runtii iyo qaabka ay noo soo dhaweynayeen iyo dawlad jacaylka runtii ka muuqda iyaduna waa wax kale oo xusuus anagu reebi doonta Hargeysa iyo xaruntii guud ee dalkana runtii aanu gaarsiin doono taasina waa wax gabiiley runtii gaar ay u tahay runtii gobollo badan baanu soo marnay oo bariga ka tirsan iyo galbeedkaba runtii aad iyo aad bay gabiiley kaalinta koobaad iyo toddobaad mid kamid marka kulli iyadoo aanu qiimeyn doono kaalmaha horeyna ka gali doontaan ayuun baan runtii iyadana idinku bushaareynaya marka runtii waa wax lagu farxo gobol kamid ama degmo kamid degmooyinkaagii oo wax fiican qabsaday gurwil fiican buu maayirku dekumimidka iyo dadaalka runtii uu la yimi oo waxaanu ku bogaadinayno runtii kuna amaanayno wadaniyad iyo dad jacayl runtii ayuu muujiyay beriyo dhaweeyta baan TV-ga ka arki jiray qolooyin yara haysto runtii maagaya oo iyadoo golaha deegaankiisa iyo tiimkiisa mala kulli halkan waa fadhiyaane ay ku jiraan marka hadee maanta wixii dambe cidii aamin soo hadal qaada indhahayaga wax ku soo arkayo runtii marka halkaasina markhaatiga runtii waa lay qabsanaya wixii aan gabiil ku soo arkay runtii mar walba inaan iyadana furo marka qofkeena noocaas kale ee dadaalaya ee gabiil iyo degmooyinka kala lamid ah inaynu gacan siino oo aynaan niyad jabin baan tiimka kalena runtii ugu baaqaya qof kasta oo wax qabsanaya qof kasta oo wax qabanaya qof kasta oo wanaagsan inaynu gacan siino ayaa runtii inagu waajiba aad iyo aad baa mahadsantiin assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaan kadib sidaa noo sheegay gudoomiyuhu runtii kormeerkayagan iyo socodkayagan wuxuu ahaa inaanu qiimayno mashaariicihii kala duwanaa ee project ama mashruuca JPLG ee sanadka dhamaanay 2022 waxyaabaha uga qabsoomay guud ahaan degmooyinka dalka ee loo qorsheeyay intii fushay iyo intaan fulin iyo caqabadaha ay kala kulmeen intii mashruucaasi socday waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa oo aad iyo aad ugu hambalyeeynaya isku duubnaanta iyo wada jirka iyo qorshaha dhameyska tiran ee ay muujiyeen golaha deegaanka degmada Gabiley oo ugu horeeyo maayarku oo ku hogaaminaya in degmadan ay noqoto degmo horumarsan oo ka horumarsan adeeg bixinta bulshada bilicda iyo quruxda magaalada iyo sidoo kale dhismaha shaqaalaha degmada Gabiley waxaan ku amaanayaa runtii warbixintii halkan ay naga siiyeen oo ka turjumaysa hogaamin wanaagsan oo ka turjumaysa bulsho iyo maamul degmo oo qorshe iyo istiraatiijiyad dhameystiran horumarintooda kale waxaan arkaynay
oo marnaba indhaha laga qarsan karayn prestation kale laga jeedinayay marka koowaad kobaca bulshadeena iyo isu soo gaarka genderka waxa halka ka barasganaysa walaasheen oo shacabka u tumayno oo warbixinta ay nasiinaysay waliba luqadda ay ku qorneed teen hooyo aanay hayne luqadda ingiriisiga ku qorneed waxa ka turjumaysaa dhismaha aqooneed ee ka muuqata maamulka degmada Gabiley waxyaabaha aynu doonayno inaynu bulsho ahaan gaadhno meelaha aynu doonayno qaran ahaan inaynu wada gaadhno waxa weeye inaynu nidaamkeena dawladnimo laga soo daadajiyo heer wasaaradeed oo loo soo daadajiyo heer degmo ilaa heer xaafadeed iskamay imanin qorshahaasi wuxuu ku yimid hogaamin wuxuu ku yimid qorshe dhameystiran qorshayaashana waxay ka mid yihiin in dalkeena maamul daadajin iyo maamul wanaag fidsan la gaarsiiyo waa barnaamij siyaasadeedkii xisbiga kulmiye ee madaxweynaha qaranku dalka ku hogaaminayo wasaarad walba waxay ku amran tahay in madaxweynuhu awoodda uu saaray wax la yiraahdo institutional building dhismaha hay'adaha dawliga waa halkeenu doonayno in dalkeenu ka sii socdo markaynu doonayno in hay'adaheena dawliga ay xoogeystaan waxa ka ay la dhisaa hay'adaha sharciyadooda waxaan ku faraxsanahay oo markhaati ka ah muddada madaxweynuhu joogay in la dhisay dhammaan shuruucihii iyo xeerarkii wasaaraddu walba lahayd golaha deegaanka hadday noqoto wax ka beddelka xeeroosaadkooga hadday noqoto wax ka beddelka xeer number 23 hadday noqoto xeerarka waxbarashada oo xeer number 77 ay ku caddahay in la sameeyo marka laga yimaado dugsiyada maamulkooda la garanayo in la gaarsiiyo gudiyada waxbarashada ee heer degmo waxa sharaf noo ah wasaaradahan inaan halkan ku hayno oo shirkii u dambeeyay ee wasaaraddu qabatay ee laga hadlayay wareejinta dugsiyada hoose iyo maamul daadajinta waxbarashada inay ka soo qayb galeen maayarka Gabiley tusaale wanaagsanna ay u yihiin adeeg bixintooda waxbarasho isku filaashooga wasaaraduna waxay wadaa qorshe dhameystiran oo adeeg bixinta waxbarashada dugsiyada primary-ga ee hoose loogu wareejinayo degmooyinka u diyaarsan waxaan aaminsanahay in waxba inaga qaldamayn waxaan runtii aad iyo aad u hambalyeynaya idinka mahadnaqana sida noo soo dhaweyseen waxa idinka muuqda dadaal joogto ah waxaanu qayb ka ahaan doonaa dadaalkaad wadaan inaanu sii taageerno ilaahay waxaan ka baryaynaa guushaad wada hiigsanayno guud ahaan qaranka Soomaaliland inaan wada gaarno aad baad u mahadsantihiin JBLG-gu waa mashruuc aan isleenahay waa uu guuleystay wada saxana waa ku socdaa midhadhalkiisina ama midhihiisina runtii meelo badan oo dalka degmooyin badan oo dalka waynu ka aragnaa oo Gabiley ka mid tahay runtii meelihii aanu soo marnay qolo waliba de level bay maraysay maamul daadajinta iyo dawladeeda hoose awoodeedu sida ay u shaqaynayso waxaanu markhaati ka wadanahay in Gabiley ay ku jirto degmooyinka ugu horeeya ee mashruuca maamul daadajinta xagga hore kaga jira haddaanay ta koobaad ba ahayn qiimayntii way noo dambaysaa waxaanu ku hadlaynaa waa araarun laakiin mashruuca iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo hoggaankiisa iyo wasaaradaha qaybta ka ah baa ayaa muxuu qiimaynta samayn doona finalka laakiin intaanu arkayno waxay ku jirtaa Gabiley meelaha runtii sida weyn noo soo jiitay noo qanciyay dhan walba runtii waxaanu anigu aaminsanahay Gabiley in hawl badanina ka socoto hadalkuna uu aad u yar yahay degmooyinka kalena ay mudan tahay inay ku daydaan waxa ii muuqda inuu qorshe wanaagsan jiro qorshayaashii aan arkayay qorshe runtii dhan walba ka hufan oo qofka qoray iyo cidda ka shaqaynaysaaba ay garanayso waxa ay qabanayso waxa ugu daran qof aan garanayn waxa uu qabanayo waxaan aaminsanahay reer Gabiley dawladda hoose qorshaha ay noo soo bandhigtay waxa uu na tusinayaa inay garanayaan waxa ay ka shaqaynayaan waxa noo muuqda inuu jiro hoggaan wanaagsan mayorku waa hoggaankii dawladda hoose laakiin laazim
hoggaanka wanaagsani waxaa jira dad wanaagsan oo la shaqaynaya konsilkiisa ka mid ah shaqaalihiisa dawladda hoose ee garbaha uu ahaa inantaa inoo samaynaysay muxuu ahaayey presentationku ay ku jirtaa ka mid ah marka waxaan aaminsanahay la'aantood inaanu maayirka hoggaamintiisa wanaagsan aanay muuqateen marka iyagana waan hambalyaynaynaa hoggaan wanaagsan baa noo muuqda waxaa kaloo noo muuqda in aragti ay jirto aragti hoggaamineed jirto waayo maanta gabiley siday u eeg tahay umay ekaateen waxaa kale oo jirta oo meelaha kale kaga duwan tahay anigu aan observe gareeyey ama aan ii muuqata xogta ama daytaha waxa la yiraahdo Somaliland oo dhani waa meelaha aynu ka dhutino presentationkii halka la inooga soo jeediyey si waadaxa ayay uga muuqataa halkii laga dhaqaaqay iyo halka la joogo taana waxa ku tusi kartaa inaad dayta hayso intaasa oo enrollment ku ahaa 2017 2022 intaanu maraya muxuu ahaayey visitka la sameeyey MCH-yada iyo xarumaha hooyada iyo dhallaanku intaasuu ahaa intana la maraya mortality rate-ku intaasay ahayd intaasaa la yareeyey yacni waxay muujinaysaa in xog jirto in HMIS-kii iyo health information system-kii degmadu uu shaqaynayo oo xog iyo baseline uu jiro laga duulayaa dabeedna waa la garanayaa halka loo socdo iyo mileska la jarayo marka halkaana runtii quality wanaagsan baa ka muuqda waxa ii muuqda caafimaadku ma aha uun MCH la dhiso iyo isbitaalada la dhiso waxaan loo yaqaanaa public health ama caafimaadka guud waxa ka mid ah environmentka oo wanaagsan waxa ka mid ah nadaafadda waxa ka mid ah laamiyada oo wanaagsan waxa ka mid ah housingka yacni waa wax badan oo isku jira caafimaadka guud ee gabiley waxaan isleeyahay waa ka koobaad haddaanu ahayn ka labaad ee dalka ugu wanaagsan sida wax waliba nidaamka ay ugu socdaan iyo mustaqbalka magaalada iyo deegaanka loo wada runtii halkaana ammaan weyn baan reer gabiley aynu ugu haynaa runtii hoggaamin wanaagsan bay muujiyeen waxay muujiyeen in dhalinyaradu Somaliland ay tahay xilligii dalkan ay hore u wadi lahaayeen marka maxamed amiin iyo inta la midka ah ee magaca dhalinyarada kor u qaaday aad iyo aad baynu u bogaadinaynaa waxaan ku soo gabagabeynayaa teamka JBLG-ga iyo madaxweyne ku-xigeenka hogaamiye ee technical teamkiina halkan fadhiyo in insha Allah tacaala gabiley ay noqon doonto center of excellence decentralization excellence-ga meeyarow jiciirow inay halkan ay noo noqon doonto insha Allah tacaala ayaan rajaynayaa markaynu qiimeynta sameeyno kadib haddii aan la yiraahdo aad iyo aad baan mar labaad idinku mahad celinayaa light wanaagsan baa muuqda rajo wanaagsan baa gabiley muuqata markay goob kamida ama degmo kamida dalkeenu hagaagtana waa in lagu farxo oo dadka kalena ku daydaan